bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka halkudhig news qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ugu dooron al-shabaab oo war culus ka soo saartay weerarkii ay ku qaadeen hoteelka Israel dagaalyahano ka tirsan maleeshiyada shabaab oo weerar dad badan ay ku dhinteen xalay ka geystay muqdisho khasaaraha ka dhashay weerarka ayaan xog badan idinkaga hayaa daawadayaal al-shabaab oo diiday in la aaso meydad ay qoorta ka jireen gobolka mudug iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya oo qirayn galmudug ay ka dhismi laadahay madaxweyne Farmaajo haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo channelkan soo gelino intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal markaana aan ku bilowna Muqdisho dagaalyahano ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa weerar khasaare badan geystay xalay ku qaaday hoteelka Israel oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya ee degmada Waabari xubno tiro ahaan lagu qiyaasay 5 dagaalame ayaa weerarkan ku qaaday hoteelkan xilliga uu dhacay weerarkan waxaa hoteelka ka socday sida la sheegay xaflad buug lagu soo bandhigay sidoo kale hoteelkan oo kaabiga ku haya madaxtooyada Soomaaliya oo dalka Soomaaliya looga arrimiyo kuna sugan yihiin madaxda dawladda ugu sareysa sida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyri iyo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murshid Cabdiraxmaan ayaa waxaa degan inta badan xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda dableyda weerarka soo qaaday ayaa la sheegayaa inay ka soo galeen dhanka kontaroolka ceelgaabta oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya inta la xaqiijiyay waxaa weerarka ku dhintay ilaa 10 ka tirsan dadkii hoteelka Israel ku sugnaa oo iskugu jiray mas'uuliyiin dawladeed dad shacab ah askar iyo odayaal dhaqameed ka tirsan kuwii ka qayb galay caleemasaarkii Muqdisho shalay lagu qabtay hogaamiyaha guud ee beesha Habargidir dadka dhintay sidoo kale weerarkan waxaa ka mid ah xeeraraaliye ka tirsan maxkamadda racfaanka inta badan dadkii laga soo badbaadiyay hoteelka Israel oo ay xalay weerar ku qaadeen dabley hubeysan oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxaa la geeyay godka Jilocow oo ay ka arrimiyaan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya si baaritaano dheeraad ah loogu marsiiyo si aysan shabaabka weerarka soo qaaday uga dhex dhuuman dadkan sidoo kale dadka dhintay weerarka waxaa ka mid ah 3 ka tirsan odayaal dhaqameedyadii shalay ka qayb galay caleemasaarkii loo sameeyay hogaamiyaha beesha Habargidir waxaana dhaawacmay 3 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka dadka dhaawacmay waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Sheekh Cabdulqaadir Cali Cumar khasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaa wali isoo taraya waxaana marka ka dambaysa la soo sheegayaa dhimasho iyo dhaawac maadaama hoteelkaasi ay dad badan ku sugnaayeen al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan waxaana ay sheegeen inuu u dhacay sidii loogu talagalay hoteelka Israel oo ay shabaab weerareen xalay ayaa 2 jeer hore waxaa weerar ku qaaday al-shabaab iyadoo uu ka dhashay khasaare kala duwan dhinaca kale taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ka hadlay markii ugu horeysay weerarkii xalay ka dhacay hoteelka Israel oo kaabiga ku haya madaxtooyada ee magaalada Muqdisho ay gudaha u galeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab taliyo ku-xigeenka booliiska Generaal Sakiyo Xuseen ayaa sheegtay abaara 7 fiidnimo ay dabley ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Israel ayna u suura gashay inay gudaha u galaan waxay taas ugu dartay in ciidamada ammaanka ay hoteelka ka soo badbaadiyeen dad badan oo iskugu jira shacab iyo mas'uuliyiin ilaa haatan waxay ciidamada ammaanka soo badbaadiyeen 82 qof oo iskugu jira shacab iyo mas'uuliyiin waxaana ka digayaa in xiriir telefoon lala sameeyo dadka shacabka ay lagu tuhunsan yahay inay gudaha ugu jiraan hoteelka oo ay shabaab weerarka ku qaadeen markaana gobolka Mudug wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegay in dagaalamayaasha al-shabaab ay diideen in la aaso meydadka dad shalay ay qoorta uga jareen magaalada Xillabi oo ku taal koonfurta gobolka Mudug tirada dadkan ay shabaab ay diideen in la aaso ayaa lagu sheegay inay gaarayaan tir ahaan ilaa 3 qof oo raga al-shabaab ayaa dadka deegaanka ku amray in aan la aasin meydadka dadkan ay ku dileen gobolka Mudug xubnahan ay shabaab dileen ayay ku eedeeyeen in isbaara dhigteen meel u dhow deegaanka Xillabi ee koonfurta gobolka Mudug markaana Galmudug wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ayaa qiray in Galmudug ay ka dhismi laadahay danaha gaarka ah ee dowladda federaalka
wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye Qarafaan ayaa qiray in xaaladihii ugu adkaa ay maraysa dhismaha Galmudug isla markaana uu wajahayo dhibaatooyin badan sida ilo wareedyo u sheegeen caasimada online. wasiirka ayaa sheegay in uu dhexda ka galay dana siyaasadeed oo isdiidan kuwaas oo hoos u dhigay rajooyin badan oo la qabay sidoo kalena dhismaha Galmudug geliyay in waqti dheer sii jiitamo. waxaa xal ka dhex raadinayay dana siyaasadeed oo isdiidan kuwaas oo dhammaantood ku saleysan dana gaar ah iyo rabitaan shakhsi ama koox, ayuu Sabriye u sheegay siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin deegaanka u dhashay oo la kulmay kuwaas oo la hadlaya caasimada online. mas'uuliyiintan qaarkood oo ay ku jireen xildhibaano ayaa caasimada online u sheegay in dowladda Soomaaliya ay waqti badan gelisay dhismaha Galmudug laakiin danaheeda gaarka ah ay wax kasta ka dhigeen fadhiid iyo in hawshii ay socon weyso. jadwalkii ay soo bandhigeen guddiga farsamada ee maamul dhisidda Galmudug ee la xiriiray hanaanka ay u dhaceysa doorashada ayaa waqtigiisii la gudbay iyadoo aan waxba laga qaban. jadwalka la shaaciyay bartamihii November ayaa qorshe u ahaa in inta u dhaxeysa 25 ilaa 28 November lagu xareeyo odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha Galmudug isla markaana laga bilaabo 29 November ilaa 9 December la soo xulo xildhibaanada baarlamaanka Galmudug. dowladdu waxay Galmudug ka rabtaa inay geysato rag ka shaqeeya soo laabashadooda doorashada 2021 waana sababta keentay in wax kasta ay socon waayaan, ayuu yiri xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo la hadlay caasimada online. in Galmudug laga helo madaxweyne daacad u ah filla Soomaaliya waa qayb ka mid ah qorshaha dib u doorashada Farmaajo. madaxweynaha oo haatan dhex taagan dagaal siyaasadeed oo la galay Puntland iyo Jubbaland ayaan hori karin maamul goboleed saddexaad oo aan isaga daacad u ahayn, waana caqabada Galmudug ay ka dhismi laadahay. dowladda Soomaaliya ayaa horey u bedeshay liiska saxda ah ee odayaasha Galmudug iyadoo la keenay odayaal ay wadato dowladda si ay u soo xulaan xildhibaano taageersan filla Soomaaliya kuwaas oo kadib qorshuhu yahay inay soo doortaan madaxweyne daacad u ah Farmaajo. maalmihii ugu dambeeyay dhismaha Galmudug ayaa god ku sii socday. ahlu sunni iyo dowladda ayaa isku haya dhismaha maamulka Galmudug ka mid ah maamulada curdunka ee dalka ka jira ayaa waxaa hareeyay khilaaf 4 sano la soo dhaafay uu jiray. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan.